maandooriyaha sharciga la waafajin doono waxaanay ka warbixiyeen dhacdadan maanta lagu gubayo xashadan waa kuwan iyagoo ka warbixinaya mas'uuliyiintan waxaan halkan gudi ahaan ugu gubaynaa maxkamadii sare xeeraalintii booliskii gobolka iyo dhammaanba iyadoo bulshadii ay ka qayb galayso maandooriyaha loo yaqaano xashiishada kaasoo aan ku qabanay nin dhalinyaro ah oo doonayay in uu ku faafiyo dhalinyaradii kale si ay mustaqbalku uga lumiyo akhlaaqdoodii iyo anshaxoodii si uu uga lumo arintaasi marka waxaan ku guuleysanay inaan gacanta ku dhigno taasoo markaan ku dhaweynay sharciga maxkamadda sare ee gobolka Jarar ay go'aan ka gaadhay xukunna ay ku riday go'aanna ay ku bixisay in xashiishadii gudi ahaan lagu gubo sidaa awgeed maanta waxaan halkan isugu nimid in aan xashiishadii aan si waxa weeyaan umadu ay wada arkayso halkan aan ugu gubno si macnaha cid kastoo ku hawlaneedna ay uga baxdo ciddii hore u isticmaashayna go'aanka la siiyay iyo ciqaabta ay heshay ay u ogaadaan xashiishadan maandooriyahana waajibkeedii loo mariyo oo loo gubo bulshada si ayna dib dambe wax noocan oo kala ah aynan ugu dhaqmin ama tani aynan dib bulshada ayna ugu noqonin waxaan halkan si gudi ahaan aan ugu nimid inaan gubno maandooriyaha loo yaqaano xashada oo horay booliska gobolka Jarar gubno isla markaana aan bulsho u soo bandhigno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa booliska gobolka Jarar oo har iyo habeen u taagan si ay uga hortagi lahaayeen waxyaabaha maartay lidiga ku ah anshaxa wanaagsan sharci ahaan waxay mudan karaan ciqaab adag ay mudan karaan maadaama ay tahay arrin khatar ku ah bulshada xashadu waa waxyaabaha dhinjarka ay ka mid tahay ciqaab adag bay mudan karaan oo ilaa xabsi 5 sano ilaa 6 sano gaari kara halkan waxaan ku gubaynaa xashadaas oo la soo qabtay miligaraamkeedu 100 miligaraam ah yaa halkan aan ku gubaynaa waxaan ku soo qabanay ku yar waxaan uga digaynaa dhalinyarta inay waxaan oo kale ka fogaadaan oo ayna u noqonin halkaas aan ku gubaynaa marka waxaan bulshada ku wacyigelinaa dhalinyarta inayna waxaan oo kale umada u horseegin cidii aan ku aragnay iyadoo isticmaalaysa ama iibinaysa sharcigan marinayna waxaan u soo jeedinaynaa caruurtooda inay akhlaaqdooda ogaadaan inayna waxaan oo kale aynan isku day wacyigelin badan dadka lagu sameeyo si ay uga digtoonaadaan waxaan markii dambe goobtan oo ah duleedka xarunta gobolka lagu gubay maandooriyahan nooca loo yaqaano xashada kadib markii la gubay maandooriyahan ayaa mas'uuliyiintan hay'adaha amniga ee gobolka Jarar iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa waxa ay sheegeen in sharciga la waafajin doono cid kasta oo isku dayda in ay keento ama isticmaasho maandooriyaha iyo wax kasta oo lid ku ah dhinaca amniga in sharciga la horkeeni doono cidii lagu arko isla markaana la waafajin doono Axmed Kaabe SRTV xarunta gobolka Jarar shacabka degmada Booq ayaa soo dhaweeyay qorshahagaha laga wado degmadaasi sida warbixintan inoogu soo diray wariyahana Maxamed Cabdi Cali Maxamed Garbo shacabka ku dhaqan degmada Booq ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin qorshahagaha haatan hirgelintiisa laga wado degmadaasi qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan degmada Booq oo la naasna haatan xukuumaddu iyadoo ku duulayso codsigii shacabka ee ku saleysnaa in degmada Booq laga sameeyo qorshahage si loo gaarsiiyo horumarinta asaasiga haatan in hawlihii shaqo la bilaabay isla markaasna meel wanaagsan marayaan shacab Booq ahaana la garab taagan yihiin dhamaystirka qorshahagaha haatan laga wado degmadaasi muruq iyo maalba haddaan ka warramo master plan-ka iyo xaaladiisa master plan-ku waa wax aad iyo aad u wanaagsan waan soo dhaweynaynaa waana soo dhaweynay kooxda horta master plan-ka anaga codsanay inuu noo yimaado shacabka iga codsaday dawladana ku guuleysatay inay noo keento